بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ساكيتو waxaan halkan kaga hadlayaa mowduuc yar oo ku saabsan ammaanka magaalada iyo masaajidda. kadib guddiga amniga gobolku markay isu yimaadeen ay ka shireen xaaladaha magaalada, ay qiimeeyeen masaajidii ay tageen, isla markaasna ay arkeen dhibaatooyinka ka jira si loo ilaaliyo dadka muslimiinta ee masaajidda ku tukanaya oo ku cibaadaysanaya naftooda. guddiga amniga gobolku wuxuu qaatay qodobadaas oo uu ku amrayo masaajidadu inay fuliyaan. masaajidda xilligii rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka roob doo oo roobku doo, dadka ayadoo laga baqaya dhiiqada intay ku simbiriraxdaan in caafimaadkoodu waxyeeloobo ama ay jabaan ama haddii ay ku run qof simbiriraxday waa garanaysaan, xataa waa u dhiman karaa oo waxa weye wadnaha go'i kara haddii ay ku run yahay. si taasi marka badqabka caafimaadka iyo dadka loo ilaaliyo, salaadaha hayya cala salaat meesha ahayd waxaa la oran jiray salaatu fi rixaal baa la oran jiray, waad ogtihiin. waxaa kaloo jira masaajidda haddii qof dayn lagu leeyahay oo uu ogyahay masaajidka markuu tago in lagu qabsanayo masaajidka sharaftiisa iyo cirdigiisa iyo si meeshaasi ceeba aysan uga dhicinin, gurigiisa inuu ku tukado haddii ay ku ronya waa bannaan tahay, si maaragtay daynta aan loogu qabsan. waxyaabahaasoo dhan marka la fiiriyo waa waxyaabo soo arooray oo shareecada ku soo arooray. haddii marka qof dhiiggiis daadanaya oo la ogyahay masaajidda in hortooda lagu dilayo, in masaajidda haddii ay ku roon yahay la yidhaahdo oo masaajidkan dadkaa lagu dilaaye aynu wax ka bedelo waxaan, oo masaajiddii culammadii joogtay aysan ka hadlaynin dadkii wax dilayey oo khawaarijtaha aysan ka hadlaynin, oo aysan dan ka lahayn, oo aysan xog keenaynin, oo dadka ay ka shakisan yihiin aysan haddii ay ku run yahay ama ay ku arkaan meesha masaajidka marka qof lagu dilayo dadku way wada arkaan, culammada masaajidka joogta, kuwa ka shaqeeya, imaamada, haddaysan qayb ka ahayn waa inay soo sheegaan. waxaa kaloo jira qaybo ka mida ciidamaday dhibsanayaan. waxyaabahaas oo dhan markaan fiirinay guddiga amniga culammada gobolka haddii aanu shiray waxaan isla qaadanay 6 qodob oo ammaanka magaalada aan ku sugayno. 6daa qodob oo masaajidda u gaar ah, haddii ay kuu roon yahay 6daa qodob waxaa ka mid ah: 1 in masaajidda lagu xiro cc camera. masaajidda cc camera haddii lagu xiro waxay noqonaysaa masaajid haddii ay kuu roon yahay la og yahay dadka soo galay, dadka ka baxay, dadka wax ku dilay, dadka ilaalinaya, dhammaantood kaameradaasaa laga helayaa. sidaa daraaddeed waxaa lagu sugayaa ammaanka. kaameraduna qiimo badan ma joogto. sidaa daraaddeed masaajidda waxaa la farayaa in ay masaajid walba oo degmada gaalkacyo ku yaalla in lagu xiro cc camera. waa amar. qodobka labaad waxaa weeye masaajid walba in lagu xiro layrar if weyn oo maalin iyo habeenba isku si wax loogu arkayo, si qofka wax dilaya uusan u qarsoomin, si qofka masaajidka markuu soo gelayo iyo markuu ka baxayaba layrkii iyo kaamaradaasi markay iscaawiyaan waa la garanaya hadhow dilka qofka geystay halkaas ka soo baxaya. ayadana waxaa la rabaa in layrar waaweyn lagu xiro masaajidka koonayaashiisoo dhan, xaafadaha deriska ah oo ku dhowdhowna dhammaantood lagu xiro. taasi gaar bay noqonaysaa, dowladda hoose gaar u noqonaysaa, laakiin masaajidka waxa ku gaarka ahi waxa weye waa in masaajidku uu xiro layrar waaweyn. ayadana waa amar. qodobka saddexaad oo amarka ahi waxa weeye in luuqyada yaryar oo masaajidda soo gala oo xaafadaha ka soo baxa oo wax macnaha u lahayn, oo markay tuugadu ay waxadaan ku dhuntaan, oo marka khawaarijta waxlayso ay ku dhuntaan oo ay ka baxaan, oo kuwa ay ku gabadaan marka hore dadka ugu gabadaan, luuqyadaa in la xiro oo masaajid walba loo sameeyo luuq weyn oo laga baxo oo dadku uu ka wada baxo kana soo wada galo, ama 2
ama 3 waaweyn oo jidad ah oo la maro keliya. laakiin haddii masaajidka 25 guri oo ku hareeraysan mid walba luuq leeyahay, luuq walba waa lagu gabanayaa, waa looga baxaya, wax macnaha ay leeyihiinna lama arko. nusmitirka yarkaa in la xiro masaajidda ayadana amar baa lagu siinayaa. waxaa kale oo masaajidda lagu amrayaa in masaajidda loo sameeyo waardiye, xataa haddaan waardiye joogtaa loo sameynaynin, xilliga salaadaha in loo sameeyo waardiye khaas ah oo haddii ilaahay kuu ron yahay masaajidka ilaaliya marka lagu tukanayo oo ka warqaba 2 3 wixii la awoodi kara loo sameeyo, ayadana waa la amrayaa. waxaa kaloo masaajidda la amrayaa khawaarijta dadka ku gumaadaya masaajidda iyo dhulka intiisa kaleba oo dadka laynaya oo dadka dhiiggiisa xalaalaystay oo dhiigyacabka ah, in masaajiddu ay ka hadlaan, in muxaadarooyin ay uga hadlaan, inay fagaarayaasha dadku isugu yimaado kaga hadlaan, in ay khudbadaha jimcaha ku soo qaataan, ayadana masaajidda lagu amrayaa. waxaa kale oo masaajidda lagu amrayaa in ciidamada ammaanka oo roondada ah oo habeenkii shaqeeya oo masaajidda ilaaliya in ay la shaqeeyaan, soo dhoweeyaan, xogta siiyaan, meesha waardiyaha u baahan tusaan, meesha waxay ka shakisan yihiin ay tusaan, dadka masaajidka ku cusub ay wargeliyaan ciidanka. intaas baa la amrayaa. masaajidda marka waxaa sidaas lagu amrayaa waa maahan hal masaajid, waa guud ahaan masaajidda gobolka Mudug, gaar ahaan degmada Gaalkacyo. waxaa la rabaa masaajiddaas in muddo 7 casha gudahood hawshaa lagu fuliyo. 2 beri, 3 beri, 4 beri, layrarkoo kale 2 beri baa lagu dhammayn karaa. luuqada in la xiro waxaa lagu dhammayn karaa 3 beri. kaamarada waxaa lagu dhammayn karaa 7 beri. muxaadarooyinka in la bilaabo waa maanta la bilaabi karaa, iyo khudbadaha iyo jimcaha. waardiyayaasha ayaguna waxa weeye wax badan ma qaadanayso, waa 2 beri kharashkooda iyo meelaha looga helayo. in ciidamada ammaanka lala shaqeeyo inay caawa bilaabataan rabnaa. marka waxaan dhammaan ku wargelinayaa dadka reer Gaalkacyoodna in masaajidada aan kaamarada lahayn oo layrarka lahayn oo luuqyadooda aan la xirinin oo aan waardiyaa lahayn oo aan dadka laga wacyigelinin haba ku tukanina. waa masaajidkaadaynu ku gaadaya. kaas masaajidkan sidaas yeelinin yani hadda masaajid ma aha, waa bahol dadka lagu laayo bay noqonaysaa. bahol dadka lagu laynayo oo masaajidkii aan layrar loo samaynaynin oo kamera loo samaynaynin, dulqaad uma yeelanayno inuu sii furaado, in dadka lagu laayo, in dhiigga muslimka lagu xalaalaysto. labayntii baa lagu laayey, cogaashii baa lagu laayey, nabadoonnadii baa lagu laayey, waxgaradkii baa lagu laayey, dhallinyaradii baa lagu laayey, hooyooyinkii baa lagu gablamiyey, carruurtii baa lagu aagoomeeyey, gabdhihii baa asay loogu saaray, haldoorkii baa lagu gumaaday, magaaladii ganacsigii dadkii ganacsan lahaa baa ka cararaya, dadkii wax kordhin lahaa baa ka cararaya, amnigii magaaladaa ku xumaanaya. dekeda Garacad qayb bay ka tahay amniga Gaalkacyo, waxay meelaha lagu soo hiranaya airport kale bay ka mid tahay. haddaynan magaalada amni ka dhiginin oo dhammaanteen u istaagin oo shacabka uusan u istaaginin oo shacabka uusan qayb ka noqonin ammaanka, laamaha ammaanka uusan la shaqaynin, gobolku wuxuu noqonayaa gobol laga cararo. sidaa daraaddeed waxa weeye ammaanka magaalada guud ahaanteen waa inaynu gacanta ku qabanno. annagu waxaan ku daba joognaa tan kale haddaan idinkaga xog bixiyo, waxaan ku daba joognaa xogihii dadkii wax geystay, jariimooyinka geystay. dad badan baan u haynaa, dad badan baan u qabqabannay. xogtu waa soo baxaysaa, ka hor dhici maayo insha allahu tacaala. dad badanna waa ku raad joognaa, xogo badan baan ognahay. intaasna waa haddii ilaahay kuu ruwan yahay waa warbixin guud. waxaa soo haray qodobka kaleeto oo ahaa ammaanka magaalada oo soo noqnoqday, dadka wax ku laynaya, falalkii u dambeeyey oo magaalada lagu geystay. dhammaantood dadkii geystay gacantaanu ku haynaa. dhammaantood dadkii geystay falkii habeen hore dhacay, raggii geystay oo gawaarida dhacay oo shilka geystay waanu haynaa gacan ku dhiglihii. kii ka horreeyey waa haynaa, kii ka sii horreeyey waa haynaa, kii ka sii horreeyey waa haynaa. dhammaantood dadkaas jeelkay ku jiraan. waxaa la marinayaa sharciga, waa la tooganayaa. 5 sano oo soo socota Gaalkacyo mag cid ku kala qaadanaysaa ma jirto. haddaba ha la ogaado, mag lama kala qaadanayo, cid la cafiyayaa ma jirto. ninkii wax geystay waa la tooganayaa, waa la qisaasayaa. nin walba dilkuu dilay waa loo dilayaa. cid gacan ku dhigliyaashaan gacanta ku hayno si degdega baan u tooganaynaa haddii lahaydno oo loo qisaasayaa, shareecada loo marinayaa. hay-adaha sharciga
waxaa la amrayaa inay sharciga hor keenaan gacan ku dhiiglayaasha ayna xukumaan kuna wareejiyaan dadkii qisaasta u lahaa qisaastooda. gaalkacyo uma baahna in subax kasta inta nabadoonno isu yimaadaan la yidhaahdo magan kala qaadano amniga magaalada dan iguma jirto. alkulayste la qabsan waayey oo markii hore la ceshan waayey oo dhala khamriga wata oo la soo daystay oo fawda ah oo suuqa bartankiisa dad ku laayay in qabiila intay usoo kulantahay naloo daayo lama dili kara ay tiraahdo wax saxa ma ahan, wax la qaadan karana ma ahan. gaalkacyo iyo magaaladana maslaxadi iguma jirto. mas-uuliyaddaas gobolka annagayna saaran tahay. amarka ka soo baxay guddiga amniga gobolka waxaa weeye annagu qur-aanka ilaahay baan raacaynaa. aayadaha qur-aanka ah suuratul maa'ida ka warramaysa qofku wax dilay sida loo gelayo. qisaastu nolol bay inoo tahay. walakum fi lqisaasi xayaatun yaa ulil albaab. dhammaanteen gaalkacyo ilaa amni ay ka noqoto cid wax cafiyi kartaa maba jirto. waxaan ka codsanayaa dadka qisaastale inaysan waxba cafiyin. waxaan ka codsanayaa inaysan diyo ku bedelanin dadka weliyuldanka ah. dadka kaloo aan weliyuldanka ahayn oo ka shaqaynaya fidnada oo dhibta ka shaqaynaya oo isku gudbaya oo qabiil baan nahay qabiil ahaan ku difaacaya dadkaasi looma baahna. dadka ha isku darinina. magac baad iyo maamuus iyo koofiyadaad wataan dadka u wataan. nabadoonnada qayb ka mida weeye. nabadoonnada qayb ka mida waxaan ka waaninayaa inay ishortaagaan dadka la qisaasayo oo ay yidhahdaan xeer baan lahayn, xaggay ahay, nolooma toogan, geel baan kala qaadan jiray, fulaan baa waxaas ma jiraan. magaaladaani nolol bay u baahan tahay. sharcigaa ka hadlaysaan waa gaalnimo. sharciga ilaahay soo dejiyey baa ka weyn, midka ilaahay soo dejiyey baa ka horreeyey, midka munasilkaa ilaahay qur-aankiisa dadkan markii la uumay adduunka ilaahay kutub buu soo raaciyey. kutubtuu soo raaciyey baa lagu xuguntamayaa. dadkan koofiyadaha wata qaarkood oo cududaarka u samaynaya dhiigyacabka, oo cududaarka u samaynaya tuugga, oo cududaarka u samaynaya alkulaystaha, oo cududaarka u samaynaya haddii ilaahay kuu rayahay inta mujrimiin ah. waxaan leeyahay ka waantooda. haddiinaan ka waantoodin dariiqay mareen baad maraysaan. magaaladana idinka hadligaya. waa la iska kin qabanayaa. nabadoonnimada waa laidinkala noqonayaa. dowladdu waa idinkala noqonaysaa. idinma aqoonsanayso. nabadoonka saxda ah waxaan u aqoonsanaynaa midka dariiqa ilaahay ku taagan, midka dastuurka ixtiraama, midka dadka noloshiisa ka shaqeeya, midka dhiigyacabka aan la safan. ninkaasaan nabadoonka u aqoonsanaynaa. gaalkacyo waxaan ugu bishaaraynayaa mujrimiintii al-shabaabna waa la toogtay. kuwa dambe hadda xiranna waa la xukumayaa. dadka hadda gacan ku dhiiglayaasha ah waxaan u aqoonsannahay al-shabaab. dadka dhulalka isku haysta waxaan u aqoonsannahay al-shabaab. dadka khamriga ka shaqeeya waxaan u aqoonsannahay al-shabaab. intaasi guddiga amnigaa go-aansaday. sidaas waa inaa ula socotaan. dadka waxaan ka codsanayaa inay nala shaqeeyaan. khawaariijta, kuwa kale, alkulaystayaasha, dhammaantiin aad nagala shaqaysaan. waxaan halkaan uga mahad celinayaa, si gaara uga mahad celinayaa laamaha ammaanka iyo laamaha sirdoonka iyo guud ahaan cid kasta oo ka qayb qaadatay soo qabqabashada dembiilayaasha. waa uga mahad celinaya. waxaan kaloo uga mahad celinayaa nabadoonnada in badan oo ka mid ah way nala shaqeeyeen. waxay ka shaqeeyeen soo qabashada dadka mujrimiinta ah oo dhiigga daadiyey oo gacan ku dhiiglayaasha waa nagala shaqeeyeen qabaa'ilada nabadoonnadooda. waa uga mahad celinayaa qayb ka mid ah. ma aha nabadoonnadu inay dhammaantood ka wada shaqeeyaan xumaan. in badan oo wanaagsan baa jirta. intaa wanaagsanna waa u mahad celinayaa. ilaahay ajar iyo xasanaad ha idinka siiya waxaad qabateen. annaguna xukunada waa fulinaynaa. inta kalena waxaan kula dardaarmayaa inay booska nabadoonnada fiican soo galaan. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.